Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal qaraar oo maanta dhex maray Al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka Liyu Booliska ee dowlad-deegaanka, kuwaasi oo ku dagaalamay xuduudda Soomaaliya iyo dowlad-deegaanka, gaar ahaan aagga Caato. Dagaalka oo muddo badan qaatay ayaa waxaa la sheegay inay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Diyaaradaha dagaalka militariga dowladda Itoobiya ayaa la sheegay in ay dagaalka culus ee ka socday deegaanka Caato ee gobolka Bokool in ay ku soo biireen, islamarkaana halkaasi ay ka geysteen duqeymo ballaaran. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka saakay oo ka bilowday kadib markii Al-shabaab weerar hoobiyaal ku bilowday ay ku soo qaadeen deegaanka Caato, iyagoo markaasi kadib 4 jiho kaga soo weeraray xerada ciidanka Liyu Booliska ee ku sugnaayeen, sida ay ku waramayaan goobjoogayaal ku sugnaa aagga dagaalka uu ka dhacay. Sida wararku nagu soo gaarayaan, dagaalka ayaa xoogaystay barqanimadii maanta, iyadoo labada dhinac halkaasi ku dhex maray dagaal qaraar oo waxba la isku reeban. Dhinaca kale, diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa la tilmaamay inay garaacayeen saldhigyo la sheegay in Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada, sida ay daabacday warbaahinta dowladda Itoobiya. Sidoo kale, Al-shabaab ayaa war ka soo saaray dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka Caato oo ku yaala xadka gobolka Bokool oo la wadaago dhulka dowlad-deegaanka Soomaalida. Dagaalka ayaa la sheegay inuu bilowday kadib markii Al-shabaab weerar isugu jiray madaafiic iyo sidoo kale dagaal toos ah ay ku soo qaadeen goobo ay joogeen ciidanka dowlad-deegaanka ee Liyu Booliska. Al-shabaab ayaa sheegay in ay dhammaan cagta mariyeen saldhigyadii ciidanka Liyu Booliska ee ku lahaayeen deegaanka Caato, ayna halkaasi ku dileen in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidanka, islamarkaana dhaawacu intaa uu ka badan yahay. Waxaa duulaan ku qaadnay maleeshiyaadka shisheeye kalkaalka ah ee ku sugnaa deegaanka Caato ee wilaayada Bokool. Dagaal adag oo aan la galnay, waxaan dhammaan cagta marinay saldhigyadii ay ku sugnaayeen ciidanka Liyu Booliska, sidaasi waxaa yidhi Cabdicasiis Abu Muscab, afhayeenka ciidamada Al-shabaab ee howlgallada u qaabilsan. Dhinaca kale, wakaaladda wararka faafisa ee dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in ciidamada Itoobiya maanta weerar ay ku dileen Sheikh Fu'aad Shongole oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee dagaalyahanada Al-shabaab. Warka lagu daabacay wakaaladda wararka faafisa ee dowladda Itoobiya ayaa lagu shaaciyey in ciidankoodu ay dileen Sheikh Fu'aad Shongole iyo sidoo kale Sheikh Cabdicasiis Abu Muscab oo ah afhayeenka ciidamada Al-shabaab. Sargaal ka tirsan militariga dowladda Itoobiya oo lagu magacaabo Major General Tafiye ayaa u sheegay wakaaladda wararka faafisa ee Itoobiya in ciidankoodu ay dileen labadani hogaamiye oo ka tirsanaa Al-shabaab, sidoo kalena lagu burburiyey kaydkii ugu weynaa ee Al-shabaab dhanka hubka. Ma jiro ilo kale oo ka madax bannaan oo xaqiijinaya warkani ka soo baxay dowladda Itoobiya ee ku aadan in maanta ay dileen Fu'aad Shongole iyo sidoo kale Abu Muscab. Waxaana warkan u imanayaa xilli Abu Muscab maanta oo warbaahinta Al-shabaab afkeeda ku hadasha ay dhankooda sheegeen in ay guulo ka gaareen dagaalkii ka dhacay aagga Caato.